السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan mar kale saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa Mustafa Show aniguna waa Mustafa ku soo dhawaada qaybtii 14aad ee sheekadeenii taana ahayd ee malabka sheekadaasi malabka waxa qoray Cabdalla ayaan la cartan anigoo Mustafa waan idin la socodsiinayay waxa inoo taagneed iyadoo ay Cabdalla iyo Cabdishakuur ku ballameen meel maqaahiya isla markaana inay isugu yimaadaan oo arrimihii ay ka sheekaystaan laki Cabdalla ayaa sheekada waday wuxuu waxa soo galay goobtii uu ku sugnaa Cabdishakuur fadhiga ayuu ka soo kacay si qurux badan waa uu soo dhaweeyay isagoo waliba dhoola cadeynaya fadhiiso maxad cabaysaa kulayl iyo qabowna waa la weydiiyay koob kafee oo kaliya ayaan u baahanahay aan cabayaa isaga ayaa kacay Cabdishakuur weeye kafeegina soo qaaday lacagtiina soo bixiyay anigu se waan shakiyay buu yiri oo inuu wax igu soo daray in kale ma hubo maadaama halka aan fadhiyo iyo halka kafeega laga soo qaadaya aanay isu muuqanin oo ay kala durugsan yihiin waxaan go'aansaday kafeegaasi totally ama guud ahaanba inaanan cabin ee halkiisa u daayo ama uu iska horyaalo markuu ii soo hor fadhiistay baan ku leeyahay soo dawarka maxad iga baahnay waxa uu igu jawaabay arrin baan kaaga baahanahay inaynu ka wada hadalno soo daayaan ku iri waan ku dhageysanayaa waxa uu yiri gabadha aynu gurigeeda isku aragnay isma ma garanaysid ha ayaan ugu helceliyay waxa uu yiri muddo sanad iyo baraha baan jeclaa oo aanu xiriir toos ah wada lahayn waa Cabdishakuur iyo Lakiye markaas baniyada ka idhi buu yiri aniguba 3 sanadood ayaanu isjeclayn oo isla wareegaalaysanay markaas isaguna sanad iyo bar meesha la shareemanaya isagoo hadalkiisa sii wataba wuxuu yiri adigana kuma ogi xiriirka iyada idin ka dhaxeeya laakiin anigu gabadhaasi waa aan jeclahay aad naftaydana waan u bixin karaa balse iyadu waa Cabdishakuur baa hadlayay Cabdallow aday iga ka dooratay oo iga ka raacday waxaan ku yiri walaalo waxa wuxuu yiri markaas uu isagoo hadalkiisa wuxuu yiri walaalka baan ahay oo waxaan kugu imid inaynu laba arrin mid u sameeyno haddaad gabadhaasi jacayl dhaba u hayso oo aad doonayso inaad nolosha la wadaagto adigu waan kaaga haraya macal magaalada aan wada deganahay waan kaaga guurayaa macni magaaladan iyo deegaankan aan gabadha wada deganahay waan kaaga guurayaa si noloshiinu u qurux badnaato oo aniguna aan idinka fogaado idinkuna aad halkaasi noloshiina ugu raaxaysataan markaas baan xasuustay buu yiri Cabdalle weeye sidii aan doonayay inaan u xumeeyo ninkan iyo sida uu gobta u yahay macni ninkan sidii gobta iyo xariirta u yahay maalintii hore waxaan islahaa iyada ayuu iska dhisayaa oo waa shakhsi aad cajiib u ah qof kasta oo goba maxaa ku xeeran buu yiri oo qiyaameeya iyo dadka xaasida maxaa isaga ay ugu soo beegmaan si daacada baan ula noolahay macni ninkan aan uga helay shakhsiyadiisa isagoo hadalkiisa sii wataaba yiri qodobka labaad saaxiib nin raga baa tahay haddaanad gabadha jacayl iyo wax mustaqbal ah toona aanad ka haynin oo aanay niyadaada kugu jirin fadlan anigay taageer walaalka baan ahay oo dhibane fursadiisii oo jacaylkayga igu taageer buu anigu nafsiyan waan qiirooday buu Cabdalle runtii qof daacad oo hadalkiyaasi iyo dareenkaasi marka aad aragto qof kasta oo dameer lihi waa uu ilmeyn lahaa anigu waxa isbedelay buu go'aankii ahaa inaan ku xumeeyo ninkan iyo naagta macni jacaylka anigii gabadha jacaylka naga qasay inaan ku xumeeyo oo isagana aan ka ciideeyo damiirkusa kuma siinayo qof wacan oo daacad ah inaad xumayso ama aad lugooyo la bareedho xumaan kasta waxa ka awood badan buu wanaaga ayaana suuliya waxaan weydiiyay su'aalo waxaan ku iri aniga iyo gabadhu intii aanu sheekaysanaynay Cabdishakuurow adigu war ma haysa waxa uu yiri maya ma hayo waxaan ku iri 3 sanadood ayaanu jacayl iyo xiriir wadnay adiguna sanad iyo barbaad leedahay intii aad gaarigaas dhexda ka soo raacday macni gaariga jacaylka aniga iyo inanta oo 3 sanad socda sanadii bar socda ayaa dhexna naga soo biirtay ayaan ku iri maan ogeyn walaalo iyo isaga macni hadal buu shubay okay intan istaagay waan ku kaadiniyo gabadhan waan jeclahay laakiin waa ay khiyaantay oo adiga ay igu ka khiyaantay laakiin shakhsi daacad baa tahay oo aan u qalmin khiyaamo iyo xumaantoona in loo geysto ama lagu sameeyo anigu go'aan baan soo qaadanaya isla caawana waan ku soo wacaya hadii alle xaqiisa laga helo okay imikana nabaday intii aan koofiyad miiska dusheeda taalay ka sii qaatay markaan maqaxidii ka soo baxay waxaan toos u qaaday buu yiri wadadii xaafadayda aadaysay xaafadu xaaladdu aadayay igu adag tahay oo nolosheeda isku booqiyo jaawareeda ayay ku jirtaa maalmahanba 2 maalmood shaqa ma aan aadin 3 maalmood inaan 2 goor wax cununba filanaya buu waxaan hubaa in 2 maalmood iyo 2 habeen aan hurdo fiican seexan waxaas oo dhan wax sabab aha jacaylkayga oo khasaaray
gurigii baan gaadhay kadibna waxaan la soo baxay buri telefoonkaygii oo waxaan eegay fariimihii ilaa shalay la soo dirayay waxaan furay sheekadii ay inantu soo dirtay oo maalintii hore aan iska dhaafay qoraalkeeda oo aad u dheeraa awgii waxaan bilaabay akhrintiisa wuxuu ahaa buu yidhi qoraal sorry raali hadaya buug aad moodo qoraal aad buug moodo badnaantiisa wuxuu ay ahaa film aan si toos ah u daawanayo waxa kale oo aan aad ugu qiirooday intii aan akhrinayay oo aan macni dhibana jacayl inantu sida dhibana jacayl u tahay iyo sida aanay dookhayga u ahayn labadaba taasna waxaa ka sii daran inaan gabar dambe jacayl iyo riwaayad cusub ay adag tahay inaan la jilo ama aan la bilaabo nolosha qofka caadiga ahi mar buu wax jeclaadaa mar buu dhashaa mar buu guursadaa marna waa uu dhintaa qoraalkeedii idinma wada sheegi karo laakiin bal intii ugu muhiimsanayd aan ka soo qaato waxay aakhirkii kusoo gabagabaysay inay sidaa igaga hadhay oo ay go'aan qaadatay aniga iyo gabadha aan jeclahayna khayr badan aynu rajaynayso xataa arooskiina waad igu soo casuumi kartaan diyaarna waxaan u ahay inaan kasoo qayb galo ayay hadalkeedii kusoo afmeertay waa cajiib waxaa ka mid ahaa macnihii ay kusoo afmeertay inantu horta ilaahayba iyadana hawshaasna iga badbaadiyay gabadh kale iyadana inaan faraha ka qaado ayaan markii horeba go'aankay waa gabadhii hore macnihii inaan faraha ka qaado iyadana ilaahay baa iga badbaadiyay wax kastoo aad kaga fogaan karto samee noloshaadana xaalad bilaa buuq ah oo kalinimo ah isaga nolow ayaan macnihii go'aan ku qaatay galabta hoosta ayaan ka xariiqay go'aanka ugu adkaa noloshayda waxa aan isagana niyadda ku hayaa inaan cabdishakuur aan waco macnihii just like aan u sheego inaan gabadhii uga hadhay oo uu iga guulaystay anigu guusha aan macnihii ku siiyey shakhsiyadaada xiriirta ah ee aad leedahay macnihii intaan cabdishakuur waco inaan ku dhahay gabadhi waan kaaga hadhay waan kuu daystay waanad igaga guulaysatay jacaylkii waxaanan saas ku leeyahay waxa tahay qof macnihii dadnimo fiican oo xiriira aniga naftayda waan soo kala dhamaanay aniga naftaydu haddaba waxa aan rabaa in aan waco talow malaki baan wacaa mise cabdishakuur keebaa u horeeya ma qoraal baan ugu qoraa mise waan wacaa labadoodaba hadalka mid kasta xagee ayaan uga bilaabaa se keebaan ku horeeya abaar macnihii shawr baan galay buuri maxaad yada kula kulmi kartaa waa su'aal sida dhibcaha roobka igu soo dhacaya waxaan go'aan ku qaatay inaan iyada hor waco oo telefoonkii baan soo qaatay weliba galabta waxaad moodaa inaan sidii hore ka dhiiranahay amaba aan ka fariidsanahay adigu galabta waan yar diyaarsanahay oo walaac badnaa iyo calool jileeciiba iga soo dhammaaday markii aan seexday waxaan soo toosay anigoo qof kale ah ama anigoo macnii just like awood kale sita horta ninkii maan soo macnii horta ninkii maanta miyuu kusoo falay baan isweydiiyey wuxuu awal miyaad gacanta iska salaanteen baan isweydiiyey laakiin waan xaqiijin waayay midkaasi in aanu isgacan qaadnay iyo in kale macnii cabaar nin muu ku falay talo maxaa saan oo dhan ugu dabacday sheeko noocaasaan yar galay laakiin markaas waan yar kale xaqiijin waayay telefoonkii baan soo qaatay la soo baxay si aan iyada ama lucky u waco waxaan markiiba wacay telefoonkeedii nasiib darro waa iga qaban weyday oo waan iska jaray aniga oo gacanta ku hayo oo isla aad wacdid cabdishakuur ma wacda mise iyada ayaad ku celisaa way igu soo celisay iyadii isla markiiba waa aan ka qabtay oo waxa igu tiri gacaliye iga raali noqo xamaamka ayaan ku jiray macnii telefoonkaaga waan ka yar dugsanay horta waan ku jeclay baan uga bilaabay run ahaantii laakiin waxa burburtay gebi ahaanba kalsoonidii aan ku hayay wax kasta oo dhacay waad ogtahay marka anigu halkaas ayaan ku joojinayaa xidhiidhkeennii gebi ahaantiisba maanta laga bilaabo waxaan ku rajaynayaa inaad noloshaada iska bilaabato ama nolol cusub aad hor usii wadato horta waa ay naxday ilaa intii aan hadlayay mar qura ma ay nuucsan inay hadal igu darsato iska daayee waxaan ku iri hallow khadki miyaanad ku jirin ayaan anigu macnihi weydiiyey ha ayay tiri ma go'aankaa kama dambaysta ah ayaad gaadhay ayay aniga i weydiisay miyaanay suurtagal ahayn inaynu wixii khaldamay mar kale saxno nah waa ay raacisay waxa ugu weyn aynu samayn karnaa waa inaynu nolosha ku midowno oo aynu isguursanno aniguna iminka kalsooni iyo niyad aan kuguna noolaado ma hayo oo imay soo hadhin marka inaynu waqtiga maawala iskaga lumino ma rabo intaa kadib ayay telefoonkii ugu damisay aniguna nambarkii cabdishakuur ayaan mar kale la soo baxay hallow waan salaamay waxaan ku iri niyow gabadhii faraha ayaan kaaga qaaday anigu adiguna inaad jeceshahay waan ogahay anigana jacaylkaygii waa uu dhammaaday adigana sabab u ahaa runtii aad buu u jecel yahay anigu arrintiina ilaahay baan macni ku dhaartee waa maalintaa dhoweyd ee aan xaafadda isku aragnay waxaan ku iri kolley anigu nin daacadabaad ayaad igu muuqataa oo qalbi wanaagsan markuu macni u dhaartay wallahi si daacada baan u jecelahay waxaan nin ama jeclaa miskida kolley aniga nin daacada qalbi wanaagsan baad ila muuqataa gabadhina farahan kaaga qaaday qofka daacadda ahina dhib badan buu la kulmaa maalin kasta iyo mar kasta waxaan kugula talinayaa wanaagga iyo daacadnimada ku kalsoonow waxaan ku rajaynayaa inaad hesho jacaylkaaga sida ugu macquulsan
gabadhaasi aad jeceshahay waa qofka ugu qiimaha badan dumarka maanta nool haddaad ku guulaysato inaad nolol la wadaagto waxaa hubaal ah inaad nolol qiimo badan ku noolaan doonto ugu dambeyn anigu waa aan idinka dhex baxay ee dagaaladan iyo jacaylkaaga sida doonto ula galgalo waxa uu igu yidhi waad mahadsan tahay sida gobannimada leh ee aad iga tanaasushay gabadhii aynu wada jeclayn ma garanayo abaalkaaga sidii aan u gudi lahaa waxaan ku idhi kaagama tanaasulin adiga ee iyada ee ay adiga xidhiidh kula samayso ayaan uga tanaasulay just like uga tagay adiga kaagama tanaasulin ee maadaama annagu aanu gabadha sheekaysano ay qof kale niyadeedaba ku qabatay in xidhiidh la samayso saasaan arrimo uga tanaasulay waxaan ku rajaynayaa guul jacayl saaxiib nabaday markaa ayaan telefoonkii ka dhigay markaan telefoonkiisaga ka dhigay baan kaarkaygii telefoonkaygii kala saaray habeenkaasi waan iska seexday subaxiina kaar kale ayaan soo iibsaday iyo number cusub si aanu dib dambe aanan isugu maqal okay hanuun kasta iyo dhib kastana waan iska ilaaway boqoradii aan jeclaa muddo 4 sannadood kadib ayaan barta facebooka ku arkay hambalyeedeeda iyadoo loo hambalyeynayo laakiin waxa yaabka badan ayaa ahaa in ninka guursaday aanu ahayn saaxiibkii Cabdishakuur aad baan uga xumaaday arrintaasi runtii waxaan isweydiiyey sidee ku dhacday Cabdishakuur Meetalow laakiin waxaan isku canaantay in aanay waxaasi shaqadayda ahayn oo aan gebigeedaba kor uga baxo wax dambe oo warahna kama aanan helin ogaalkay وهجاك هل كاسي أي كل ما تيجي كذي ملب كأو قرية عبد الله أيان لعرتن أنا جو مصطفى حاجة أيضا هارون مشرح أنا دي اللي سعوديين يبرتها تكلم سعوديين يا هاي مصطفى شو هدي هذا وضع وده الله وود اللي قدره لوان وحا أن ست حنا أو بلا بدون أبوجي وقري هرسي على حاجة حسن جيف أوف كابينيت يوسير كي ورا وسارة مدحتوية الصومالي لان إمي كان هجاميها حسبك وضني الصومالي لان صاحب بيال reer malo aad baad mahadsanti idinka mahad celinaya sida qiimaha badan ee aad ula socoteen insha Allah ta'ala sidaas iyo nabadgelyo barnaamijka hadii aad ka heshay isku day inaad saaxiibka la wadaagto hadii intaasi aynu sheekada wadnay oo Cabdalle go'aan qaadashadan uu ku degdegay ama tanaasulkan uu sameeyay ama laki 4 sanadood kadib inaanay guursan Cabdishakuur iyo Cabdalle midkood ay calaf kale iyadoo lafteedu barbaaratay bal fikirkaaga iyo qaabka sheekada falcelintaadu ay noqotana hoos nugula wadaag sidaas iyo waxaan idin leeyahay mar kale salaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh